السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناسن داوديال إذا أنتي وميركستو أدنا قد داونيسان كسر هذا برنامج كارهان وتركلني إن معركتي مركزي أنكو غرفينا معركتي حالدي وجود بسوماليا جار أهان isbedelka Soomaalida maaragtay guud ahaan gaar ahaan maaragtay dhinaca warbaahinta waxa aa barnaamijka marti u ah qabiir saxaafadeed oo maaragtay aad si weyn u wada garanaysaan Ustaad Adam Ingiriis oo isagu maaragtay inta badan isha ku haya guud ahaanba isbedelka iyo dhaqdhaqaaqa suxufiyiinta Soomaalida iyo maaragtay suxufiyiinta kale caalamka. Ustaad Adam Ingiriis ayaa waxaan jeclaan lahayn maaragtay inaan wax ka weydiino maaragtay isbedelka mise isqabqabsiga xilligan ee ka taagan dalka Soomaaliya gaar ahaan maaragtay ururka qaranka suxufiyiinta Soomaaliyeed marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan NOSOJ oo awalna uu ahaan jiray Sojourn Somali Journalist Network isqabqabsiga ka jira NOSOJ Ustaad Adam ma suxufiyiinta Soomaalida wadanka gudihiisa oo kaliya mise guud ahaan saxafiyiinta Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda waa uu saameeyay sidee loo arkaa maaragtay isqabqabsiga ururkaasi. bismillahi wa kafa wariye faad waad maadsan tahay adiga iyo daawadayaashaada warbaahinta koonfurta Soomaaliya barnaamijkana waan ku dhawahay isqabqabsigaasi muddo badan ayuu soo jiitamayay dal iyo dibadna waa uu saameeyay xaqiiqdii waxa uu qayb ka yahay dhibaatooyinka ka jira dalka Soomaaliya oo si daba dheeraaday. NOSOJ waxa ka horeeyay urur la yiraahdo Sojourn waxa aasaasay ama gudoomiye ka ahaa nin hadda suxufi Soomaaliyeed oo laakiin si u turaanturooday mar raba inaan macnihi ku dheeraado kadib waxa meesha yimaaday ururkan hadda macnihi la isku haysto oo ah NOSOJ waxa gudoomiye ka noqday nin la yiraahdo Cumar Faaruq oo isla waqti xaadirka gudoomiye xogayaha guud haddana isla ururkii laba u sii kala jabay ninna macnihi qaybna waxa hogaaminaya Cumar Faaruq qaybna Pakistan nin la yiraahdo ayaa hogaaminaya labadooda midna ma taageersanin waxna igagama xirna laakiin dhibaatada meesha ay ka jirtaa waxay tahay ururkan isaga oo dhisan labadiisa qayb ha u sii kala jabsanaado qaybta Cumar Faaruq waa macnihi qayb adduunka uu aqoonsan yahay taageero uu ka haysto caalamka qaybta Pakistanna waa qayb gudaha uu taageero ka haysto oo laakiin caalamka aan aqoonsi ka haysanin marka dhibaatada waxay tahay wasaaradda warfaafinta isku xiran yihiin waxay isku xiran yihiin Pakistan oo gudaha ah iyo wasaaradii warfaafinta dawladda federaalka ayay isku xiran yihiin Faaruq groupkiisana waxay isku xiran yihiin hay'adaha internationalka iyo saxaafadda caalamka marka dhibaatada waxay timaaday kadib markii dawladda federaalka qaasatan wasaaradda warfaafinta ay soo faragelisay ururkaasi hawshiisii qaasatan midka Cumar Faaruq marka ururkan sidiisaba waa urur madax bannaan oo macnihi suxufiyiin ay leeyihiin aan shaqo ku lahayn siyaasadda marka dawladda federaalka markay lugta soo gelisay dhibaatada markaas ay bilaabatay aan ka dhaxgalay aadan daqiiqada ka hor waxa qadka kuugu jiray saxafiyiin reer koonfur galbeed ah oo qadka telefoonka oo kugula soo xiriiray oo ay ku leeyihiin hidil Muqdisho aaday anagana waa laga tagay maaragtay afar qof aan laga cusumay maxay ahayd aad baa u buuqsanay sababta waxyaabo aad ka hadlaysay oo maaragtay aad kala hadlaysay adiga iyo wariyaasha Baydhabo hadda ka soo wacay waxaan isla warbaahinta koonfurta galbeed ee Soomaaliya ku qor ama ku baahi waan isla laakiin hadda nasiib waxaan u yeeshay in aad waraysi live adiga igala yeelato runtii Ingiriiska wuxuu yiraahdaa fair exchange has no robbery wax la isku og yahay ceeb ma keenaan haday ceeb keenaan la isku macaasiyo macnaheedu warbaahinta koonfurta galbeed iyo shacabka koonfur galbeed waxaad moodaa in dhibaato ay haysato Shiinayskana wuxuu yiraahdaa Ching Chang Chung oo macnaheedu yahay dadka Shiinuhu waa dun dadka reer koonfur galbeed marka kan oo kale waa wada dun dad wax fahmaya ma ahayn maanta isqabqabsigan isagoo uu taagan yahay iyaguna in ay sii qabsadaan saxafiyiinta koonfur galbeed ee xabar u soo kala dhuntaan ma aysan ahayn maxaa yeelay anigoon garabna taageersanayn reer koonfur galbeed waxaa laga rabay suxufiyiintooda in iyagoo isku duuban xataa haddii shir Muqdisho loo soo aadayo ay yimaadaan iyagoo wada jira laakiin ma aysan dhicin
oo dowladda federaalka markii ay soo faragelisay ay tiri waa in ururka nosej hadda doorasho uu qabtaa oo macnihii la doortaa guddoomiye loo dhan yahay iyadoo ay ula jeedo in cumar faaruuq gruubkiisii oo caalamka aqoonsi ka haysta macnihii ay meesha ka saarta ay ula jeedo oo qoladan gudaha Pakistan oo hogaaminayo ay dowladda isku xiran yihiin raba inay soo saaraan haddana doorashadii xataa haddii la yidhaahdo inkastoo saxaafadda dowladda macnihii saxaafadan dowli aan ahayn dowladdu aysan ahayn inay soo faragashato aysan ahayn ay macnihii maniirin ay ku samayso haddana waxay ahayd reer koonfur galbeed mowqif midaysan inay ku yimaadaan xataa haddii doorashadaasi ay imaanayaan waayo doorashada nafsadeeda hadda dhibaatada ka taagan waxay tahay xalaal maba ahanba koonfur galbeed ahaan ama reer koonfurku dan uguma jirto maxaa yeelay Puntland 18 xibnooda ka timaada oo suxufiyiin ah Somaliland iyo macnaheedu goboladan kale iyo Kismaayo 18 xubnooda ka yimaaday oo waliba wariyaal hayta marka baydamana afar qof soo koonfur galbeedna xataa afarta qof koonfur galbeed waxa la casuumay milkiilayaal idaacadeed ayaa la casuumay ama milkiilayaal saxaafadeed ama dad idaacada leh ayaa la casuumay milkiile waa ganacsi suxufi ma suxufigu waxay ahayd in suxufi wariyaashu say u badan yihiin oo baydhabo ma aragtay shirkaasi ma ka qayb galin lagu macsuumin leedahay lagu macsuumin wariyaal lagu macsuumin afar qofood ayaa lagaga casuumay afartii qofoodna go'aan loo dhan yahay walaalahay anoona mucaaradayn haddana kuma aysan iman maxaa yeelay miisaanka balansiga isku mid ma baahanba haddii Kismaayo ama ma arkaysa Puntland 18 qof ay ka timaaday koonfur galbeed in afar ay ka timaado taasaaba cadaalad darro ah inkastoo ay dulmi tahay in ururkan nosej isagoo dhisan dowladda ay soo faragelisaba ay dulmi tahay ay tiraahdo haddaan doorasho xataa hadday taasi dhacayso koonfur galbeed afar qof inay ka yimaadaan Puntland 18 ay ka timaado maaha marka waxaa leedahay reer koonfur galbeed shirka muqdisho ee qaybta nosej ee dowladda taageerayso waa lagu dulmiyay ma leedahay waa lagu dulmiyay maaha iyagana way soo ogyihiin Jarmalku wuxuu yiraahdaa wenn Wasser kommt am Arsch und den man lernt schwimmen biyaha hadday dabada yimaadaan qofka isaga dabaal baranayo dadkan dulmi inuu haysto iyaga u jeeda laakiin marka loogu dhameeyo markaas ay macnaheedu si dhab ah u baraarugi doonaan laakiin soo wanaagsanaan in reer koonfur galbeed inta isku tagaan oo ismideeyaan oo ma aragtay hal nidaam ay sameystaan oo ma aragtay isku af ahaadaan isku duubni baa qaran lagu difaaca suugaan baa tiri dadka kan dhibaatada haysata waxa weeye hadday suxufiyiin hadday siyaasiyiin isku duubni la'aan hadday isku duubayn ay yiraahdaan anagu reer koonfur galbeed Soomaaliya nala dhahaa wixii meeshaasi muqdisho lagu qaybsanayana xibinteenaan ka rabnaa yaa u diidi kara marka adeed waxaa leedahay mise Umar ha raacan mise Pakistan ha raacan waxa anaga aan rabno waxa waaye haddii wax la sameynayo wax gobolada kale qaateen wax la mid ah inay qaataan inay qaataan macnaheedu horaan u sheegay waxaan ku dhahay fair exchange has no robbery wax la isku ogyahay ceeb male wixii dadkaasi saamiga ay qaadanayaan iyagoo midaysan inay qaataan laakiin hadda afar hadday soo baxdo oo ay meesha timaado gobolada kalena min 18 ay timaado maxaa reer koonfur galbeedna magaceeda ay ku fadhiyaan afartaasi macnaheedu xibintii ay xaq u lahayd koonfur galbeedna macnaheedu iyaga lagu shaabadaynaya kaamirada iyaga la hordhigaya xaqiina macnaheedu waa la guddoonsiyay وأنا كمتي وقدمتي مركا السفينة الكونفور قلبت أما بين هجوجان مثل أفجو هجوجان أما سماركا هجوجان أما يوروب أما أمريكا الدنك أمريكا الدول هجوجان ما حد هو باقي لهاد ما حد شيء لهاد ما حد ما رأيت أكل ما دام قبيل صحافة هذا وقتها السفينة الصومالية دولنا وحنا شيء يا مركا أوه الرئيسة إن أي اسكت ضمان صحافة ما أهم معناه صحافة دولة معها دولة وسائل ورفافين في ولادها وسائل داس ورفافين تا إذا عد جونية إرادة التلفزيون قرنكا هي أو أديجة دولة وإنه كم بنانا دان صحافة أي حد كهذا ضدك إصدار رأي الجروبية اسمها هي الصومالية سي ورركو أول نقطة كلام قوة حد waayo haddii dawladda ay hoos tagaan ay maniirin ama management ay ku samayso macnaheedu waxay tahay in ay dawladda ku saf ahaanayaan qolooyinka mucaaradkan ay dhahayaan idinku murtadiin baad tihiin hal garab baad la shaqaysaan taasi Soomaaliya ugu baaqaya midda kale koonfur galbeed waxaan ugu baaqayaa warnimayo dadka ayaad la mid tihiin dadka xubinta ay leeyihiin baa xaq u leeyihiin adinka haddaad iskhilaaftaan
aniga waxaan u arkaa 18 kaaba xataa dulmi ah 18 xataa haddii la siiyo koonfur galbeed dulmi waa maxaa yeelay koonfur galbeed waxay ku ama koonfur Soomaaliya waxay ku fadhidaa kala bar Soomaaliya ku fadhidaa marka kala bar Soomaaliya meeshii la rabay inay ka qaataan wixii muqdisho lagu qaybsanayo in ay maanta haddana 18 kii la qaybsanayo ay wax ka waayaan oo afar ay soo dhuuntaan lagu shaabaday taasan ayaan daro arkaa waxaan ugu baaqayaa walaalahaygi in aysan u soo kala dhuuman muqdisho in aysan u soo kala dhuuman gobolada kale marka shirar lagu qabanayo dibaddaba isku duubmaan iyagoo isku duuban ay yimaadaan gogol kasta oo Soomaaliya wax ku qaybsanaysa cad nool oo xalaalan ay qaataan aad iyo aad ayuu maasay kaasi wuxuu ahaa ustaad Aadan Ingiriis khabiir saxaafadeed oo maaragtay in badan maaragtay ishu ku haya siyaasadda guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dhaqdhaqaaqa suxufiyiinta gudaha iyo dibadda oo uu maaragtay sitimaanka nagala qayb qaadanay barnaamijka asigoo diiradda saaray ururka Nosoj qabsigiisa iyo waliba suxufiyiinta reer koonfur galbeed iyo lafsid ahaantooda maaragtay tafaraaruq iyo maaragtay kala qaybsanaan ka dhex jirta aad iyo aad buu mahadsan yahay ustaadka waraysigiisa aad baa u mahadsantahay ustaad adiguna ma mahadsantiin adiga daawadayaasha